wararka ka imaanaya deegaano hoostaga gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaasatan ciidamada commandoska Danab iyo sidoo kale kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland ay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose howlgalladaasi oo lagu xaqiijinayo amniga sida ay tilmaameen saraakiisha hogaaminaysay howlgalladani waxa ay sheegeen in ay inta ay ku guda jireen howlgalladaasi ay burburiyeen xarumo ay kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana howlgalladani ay yihiin kuwa sii soconaya oo lagu xaqiijinayo sugidda amniga deegaanada maamulka Jubbaland gobolada Jubbooyinka ayaa waxa ka soconaya guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab iyadoona markaan wararka ay sheegayaan isla markaana xiriiro kala duwan oo aan la sameynay saraakiisha ciidamada Danab iyo sidoo kale kuwa daraawiishta Jubbaland ay noo xaqiijiyeen in ay dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaano ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe isla markaana la filayo in saacadaha soo aadan halkaasi uu ka bilowdo guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab saraakiisha ayaa sheegay inay wadaan gulufkii ugu dambeeyay oo ay isugu diyaarinayaan dagaal lagu qaado degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe sida ay tilmaameen saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ee ku sugan gobolka Jubbada Dhexe Jubbooyinka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka taagneed xasarad dagaal oo u dhaxeysa ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda al-shabaab iyadoo kooxda al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada deegaano dhowr ah sidoo kale tan jabab culus ay ku gaarsiiyeen dagaalo kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay ay la galeen kooxda al-shabaab iyadoo saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya ay guulo waaweyn ay ka sheegteen dagaalada gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale gobolka Jubbada Dhexe ay kula galeen kooxda al-shabaab